Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Macluumaad ku saabsan dadka caddaanka ah. Dadka caddaanka ah waxa ay degaan qaaradaha adduunka oo idil, waxayna u badan yihiin qaaradda Ameerika iyo qaaradda Yurub. Waxa ay xoogoodu degaan Ameerika sida Maraykanka iyo Kanada. Fikradda ka dambeysay in ay bilaabato kala saarka iyo kala soocitaanka aadamiga waxa ay bilaabatay qarnigii 17aad xilligii uu socday ganacsigii addoonta ee qaaradda Afrika laga soo gurayay dadka madow si loogu shaqaysto Ameerika dhexdeeda. Waqtiyadaas kadib waxaa caan noqotay fikradda ah in caalamka u kala baxo caddaan iyo madow. Guud ahaan dadka caddaanka ah waxay ku dhaqan yihiin meel kasta oo caalamka ka mid ah, xitaa qaaradda Afrika waa ay degaan, siiba Koonfurta Afrika. Dadka caddaanka ah guud ahaan waxay ku nool yihiin meel kasta oo caalamka ka mid ah, isla markaana waxay degaan qaaradda Yurub iyo qaaradaha Aasiya iyo Australia iyo Bariga Dhexe.